madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kormeer ku sameeyay mashruuca wadada weyn ee Nairobi Expressway. Waxa uu sheegay in wadadan la furi doono bisha 3 ee sanadka soo socda si dadweynaha ay u adeegsadaan. Hogaamiyaha Kenya ayaa hoosta ka xariiqay in marka mashruucan la dhameeyo uu fududaan doono ciriiriga dhanka isku socodka gaadiidka ee magaalada madaxda wadanka. madaxweynaha ayaa dhawaan warbaahinta u sheegay inuu ku qancay geedi socodka dhismaha wadadaasi oo uu xusay inuu meel wanaagsan maraya. dhanka kale madaxweynaha ayaa beeniyay wararka sheegaya inuu jiro qorshe lagu dhacayo dhulka beerta xurriyadda ee Uhuru Park, isagoo Kenyaanka u xaqiijiyay in howlaha dhismaha ee goobtaasi ka socda ay yihiin kuwa lagu sii qurxinaya. 200 subcontractors who have also benefited from this project. And those 200 subcontractors also have engaged and employed Kenyans. And all this we have achieved despite the crisis of COVID that we face. So mine really is to thank everybody. Thank the ministry, thank the contractor, thank the Chinese government, thank all who have been involved, thank the security agencies who have been involved in ensuring that people are able to work on a 24-hour basis. Thank Nairobi Metropolitan, and we'll be here. Hata nyinyi mukitaka, wale ambao walikuwa wanasema sijui tumegrab Uhuru Park, sijui na Central Park, mpige picture wananchi waone kazi ile inaendelea huku jamani. Alright? Na hii yote ni kuboresha maisha ya Wakenya wetu. Wawe wanaweza kujivunia mji wao wa Nairobi, wawe wanaweza kujivunia nchi yao Kenya. Na hiyo ndio haja yetu. Sisi hatuna haja nyingine. Kwa hayo machache na mengi, Mungu awabariki na aendelee kuwalinda.